مريم waxaa bilaabatay suuratu maryam waxay ku magacaaban tahay maryama radiyallahu canha ayay suuradan ku magacaaban tahay waxaa lagu baabi'inayay qoladii mushrikiinta ahay ee tiri maryama ilaah baa qaba dabeecadda iyaga mushrikiinta yaqaaneen ninka naagtu qaba magaciisa ma sheegi jirin 30 goor baa magaca maryam quraanka ku jira ilaa suurad dhan maryamaba lagu magacaabay iyaga sankooda carra lagu shubaayay hadduu qabo magaceeda muxuu sheegaya idinkuba naagihiina magacooda ma sheegtaane oo dhaqanka inaga ay naagaha dafriina hebel awal wartii carruurta dhashay arkay waa taariikh horeysay in ninka naagta magaceeda uusan sheegin laakiin rasuulka waxaa dan uma lahayn yaa caaisha ashadu nnaasi cadaaban yawma alqiyaama almusawiruun kolkaas suuradan waa suuratu maryam suuraddii waxaa weeye 19 ama 20 suuratu maryam waa makiya waataynu nidhi qur-aanka waxaa xuduuda hijradii rasuulka wixii qabla alhijra soo degay maki baynu ku magacaabaynaa waana 86 suuradood rasuulka markuu madiine tegay ka gadaal wixii soo degay madani baynu ku magacaabaynaa waana 28 suuradood kolkaas suuratu maryam waa makiya wa aayaatuhaa 98 aaya 98 aayadood suuratu maryam waa bilaabatay abda-u haadihi suura waxaan suuradatan ku bilaabayaa bismillah alla magicii magaca qiimiga badan cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guuda uunka wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed ee inta rumaysa raacday uu ugu naxariista wey kaaf ha ya cayn saad allahu aclamu bimuraadi xuruuftii muqadacaydan soo marnay wey suurado badan baa ka bilaabanayay oo aynu soo marnay kolka alla og wuxuu ula jeedaa xuruufta muqataca fikraddii qiimiga badnayd ee salafka uu ku tegay wey ilaah in loo daayo waa mutashaabihi aan wax loola jeeda la garanay haddana ma faa'iida laha tambiih iyo tacjiizba waa ku jiraan qur-aanka nimankii qayrsaday oo la yidhi kaaf iyo ha iyo ya iyo cayn iyo saad xuruuftaa taqaanaan ee hijaa'iga ayuu qur-aanka kulligii ka kooban yahay waxa uu tiro badan yahay 28 xaraf keliyatuu ka koobmaa idan sameeya haddaad samayn kartaan tacjiizka waa ku jiray tambiihna waa ku jiro xuruuftaas ayaan maqli jirin een dhaqankoodii ku jirin een mustacmalka ahayn kolkay dhagahooda ku dhaco inay soo jeestaan intibaah sameeyaan dabadeed dantii lalahaana loo sheegay markaa kadib labadaa waa ku jira haada waxaan bilowday dikru raxmati rabbika adiga muxameda rabbiga ku abuurtee ku leh naxariistiisii uu rabbi u naxariistay addoonkiisa zakariya sheegideedii abdahu uu addoonkiisii u naxariistay zakariya zakariya waa nabi rasuula min ambiyaa'i bani israa'iilna kamida kolkaas zakariya waa yeelay awlaadna ma lahayn afaduna ma dhashay ahay isagiina waa gaboobay wuxuu arkay qaraabadiisii oo dad baas oon diintii u dabacsanayn oon rabbi tixgelinayn kolkaasuu yidhi haddaad adiga dhimato diinta waa baaba-aysa markaasuu isaga jileeciisii iyo inuu gaboobay iyo inuu geeri u dhow yahay u sheegay uu yidhi diintiina hogaamiye diineed ma hayo adigoo haddeerisiiya maahaan kolkaasaa rabbi intuu u naxariistay ayaa markiiba dacwadiisii la aqbalay yaxyaa la siiyey magiciisii wata markiina diintiiba loo dhiibay kolkaa diintii dhaxal fiican bay heshay haadaa midkaan dikru raxmati rabbika adiga muxameda rabbigaa naxariistiisa naxariistaa sheegideedii wey uu rabbi cabdahu addoonkiisii u naxariistay addoonkii zakariya ahaa sidee zakariya yeelay id naadaa markuu zakariya qayliyey rabbahu buu u qayliyey nidaa'an qayla khafiyan qarsoon haddaad ilaah baryayso inay sir tahay fiimaa baynaka wa bayna allah adiga alla wax u dhexeeya inay tahay ood habeenbarkii hoos ula hadasho ayaa qiimi badan kolkaasuu id naadaa markuu u yeeray zakariya rabbahu rabbigii nidaa'an yeermo khafiyan qarsoon markuu rabbi u yeeray muxuu yidhi qaala zakariya wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi allaha ilaahay abuurtayow inii aniga zakariya wahana alcadmu lafa jilce minii xaggaygaa washtacala ara'su madaxii hur shayban ciro dacfigaygiiyo xaaladii waa sida oo dacwadiiyo diintii wadideeda tabar uma hayo walam akun horena uma ahaan jirin biducaa'ika adiga tuugmadaada rabbi yaa rabbi
rabbiga i abuurtayow shaqiyan mid ku hongoobo haddii weligaa lagu dhaqaaleyn jiray laakiin ixtiyaajadii adigaba aada isku abuurantiin oo weligaa aadan dhargaynin oodan alle ka maarmin bal waxa aad doonaysaa cusub intaad dib u dhigato horta hore ka mahadceli wixii lagu daray marka zakariya sidii waad hadalka macaankiisa arag wuxuu yihi anigoo ku tuuga oo waxaan kaa tuuga waayo hor uma arkin waxaad iiga caada yeeshay adiga inaad iga aqbasho anna waxaan ka caada yeeshay inaan ku tuugo laa tas'alana baniya aadama xaajatan was'al iladii abwaabuhu laa yuglaqu allahu yagdabu in tarakta su'aalahu wa baniya aadama xiina yus'alu yagdab kolka ilaah baryadii kugu jecel oo kugu soo dhaweynaya ku joog siduu u hadlay zakariya arag nabiyaashaa laga tix qaataa qaala wuxuu zakariya yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow inii aniga zakariya wahana alcadmu lafa jilce minii xagga iga ahaatay waa yeel baan noqday washtacala ra'su madaxii waa huray tin madow lagama heli karo shayban ciro walam akun horena uma ahaan jirin biducaa'ika tuugmadaada intuu rabbi dhex gelinaya arag rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow shaqiyan mid ku hongoobo ku dhur darsada anoo ku tugo waayana horay uma arkay dantiisii weli ma sheeganine intaa waa digdig iyo goobxaar qorihii buu salaaxay waatan dantii kusoo dhawaaday wa inii aniga zakariya khiftu lmawaaliya qaraabadaydii waa ka baqayaa kuwan diin danaynaya ma aha min waraa'i bacda mawti wa intaan jooga diinta in laga leexleexda waa la arkaa laakiin aniga haddaan ninto wax diin dhaqaa qaraabadaydii ugama jeedo aniga farac mali wa kaanat imra'ati wadaadaan qaba waxay noqotay caaqiran ma dhasho kolka asbaabtii wax lagu arki jiray diyaar ma aha deeqdaada se wax hor istaagi kara male fahablii isi min ladunka agtaada waxaad iga siisaa weliyan maamule diinta qabtoo hogaamiya muxuu qabanaya geel iyo arya lo iyo dukaan uma dirsanayo yarithuni aniga yacquub uu idhaxlaya naxnu macaashira alambiyaa laa nuurath maa taraknaahu sadaqa nabi wax laga dhaxla waa taqaan diin baa laga dhaxlaa xoolo lagama dhaxlo yarithuni aniga wuxuu idhaxlayaa zakariya wa yarithu min aali yacquub diintii ibraahim kasoo bilaabatay ilaa yacquub soo socotay anigana maanta aan hogaanjiid u ahay yaan rabaa inuu qabto wajcalhu ilaahu anigu waaba isiin doontaa waxaad ka yeeshaa kaad isiinaysa rabbi sida ugu dhandhanaansanayo arag laba markuu yaa rabbi ugu dhaxtuurayo rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow radiyan midaad raalli ka tahay ka dhig anigu aad isiinayso haddaadan raalli ka ahayn ma raba igada meeshuu warka jooga arag waxaadan raalli ka ahayn annagana tugaan hoosta ku wada haysanaa leenahay anaa dhalay o wiilkaygii gabartaydii haddaadan ilaahu raalli ka ahayn ma rabow wa inii aniga zakariya khiftu waxaan ka cabsaday almawaaliya ilma adeerta min waraa'i geeridayda gadaasheed wa kaanat imra'ati afadaydii waxay noqotay caaqiran ma dhasho fahablii isi min ladunka agtaada iga sii weliyan maamulo diineed yarithuni aniga idhaxla zakariya oo diinta iga qabta wa yarithu min aali yacquub yacquub iyo awlaadiisii ka dhaxla diintii wajcalhu rabbiyo weligaad isiinayso rabbi yaa rabbi waxaad ka yeeshaa radiyan mid laga raaliya goormuu warkaa leeyahy waa salaatuleyl buu ku jira mixraabkuu ku jira waa habeenka niskiisa dambe ilaahna subxaanahu watacaala waa waktiguu soo degi jiray uu la joogo maba la daahinin qaala tacaala rabbi wuxuu yaa zakariya zakariyahoy ina anaga eebaanu bashiruka haddaad weli i weydiisay waxaanu kuugu bishaaraynay bigulaamin wiil ismuhu magaciisa yaxyaa la yihaa lam najcalu maana yeelin lahu yaxya min qablu asaga hortiis samiyan wax ku magaca magacan waa magac cusub oon weligiisba lala bixin yaxyaa ugu horreeyey ilaahaana bixiyey liyaciisha wa yaxyaa kolka wiilkii waa kaas wiilkan iyo muwaasafaadkiisana waa imaanayay yaa zakariya zakariyow ina anaga eebaa aanu bashiruka axad kale ma ah shaydaan iyo marag laguguma soo dhiibin ina anaga eebaa aanu bashiruka kuu bishaaraynay zakariya bigulaamin wiil biwilaadati gulaam wiil inuu dhalanayaan kugu bishaaraynay ismuhu wiilka magaciisana xag allah laga soo diray magacii yaxyaa la yihaa lam najcal ma aanu yeelin lahu wiilka min qablu hortiis samiyan wax ku magacow
qaala rabbi annaa yakuunu lii gulaam wuu gartay warkii laakiin waa bashar zakariya ama wuu jeclaaday wiilkii in xoogaa loo sii sharxo warka suu ku imaana ama haddii kale wuxuu ogaaday xaaladiisa xaalad wiilku imaan kara maaha wadaadan hadday yarayd ma dhali jirin haddana waa weynaatay kolkaa waa laba sifo oo awlaadda diidaysa wey asagana dhacaaba ma tifjin karo lugihiisii waa qalqallocdeen waa angegay wadaadka kolkaa anigii oon waxba isla haynin iyo tanoon weligeedba waxaynin bal ii tilmaansuu wiilkii ku imaanayo jacaylka arag qaala zakariya wuxuu yihi rabb meeshuu warka ka bilaaba arag kelimatu rabb cibaaradaas aan isticmaasho la rabaa rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow annaa kayfa sideeba yakuunu iigu ahaan doonaa lii aniga ghulaamun wiil asbaabtii macquulkayda la arki jiray aniga dhacan ma tifjin karo wadaadaana riximkeeda waa isku malaasan yahay wiilna waa noo sheegtay calaa ayi wajhinkaan saas ku imaanaw wa kaanat imraati wadaadaydii waxay noqotay caaqiran ma dhasho waqad balagtu anigana waxaan gaaray zakariya min alkibari da' xaggeed citiyan angeg waa angegay kolkuu qofka weynida ka badato qoyaanka o dhanaa ka dhamaanaa farihiisa masmaar oo kaley noqonayo lafaha waa qallafayin jirkiis oo dhan waa angaga qoyaankaa ka dhamaana nucuumada iyo quruxda waa yaraanta kolka anigiina waa angegay wadaadana waa ma dhasho sees wiil ku imaanaw qaala zakariya wuxuu yihi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow annaa sideeba yakuunu iigu ahaan doonaa lii aniga ghulaamun wiil wa kaanat imraati iyadoy bilcantayda noqotay caaqiran ma dhasho abeera waqad balagtu ana aan gaaray min alkibari da' xaggeed citiyan angeg qudradii yaallo in allaha calaa kulli shayin qadiir maaha waxaan qudra wa ma aha asbaab qaanuun asbaab almusababaat wixii la arki jiray meeshaan ma yaallaan qaala eeba wuxuu yihi kadalika waa runta adiga anna waa runtay adiga nin wiil dhali kara ma tihi habartaana awalba dhalma ma aqoonin xaaladiina waasaad ka sheegtay aniga inaan wiilkeena waa runtay kolka labadaba run waa qaala rabbuka rabbigaa wuxuu yihi huwa inaan labadii naas waa yeele qallaftay wiil ka abuuro calaya aniga eebba-a korkayga hayinun waa ku fududa daliil ma rabtaa waqad khalaqtuka adiga zakariyaaba taan ku umay ma aho min qablu hadda ka hor walam taku adoon ahayn shay-an waxba kolka maxaad ku kala duwantihiin kolka aniga waxaana iguma cusla saana loo qanciyey waa qancay kolka qaala wuxuu yihi eebe kadalik amarka waasaad sheegto waa runta laba waayeeloo ma dhashii angegtaa tihiin anigana waa runtay wiil waa imaana qaala rabbuka zakariya rabbigaa wuxuu yihi huwa arrinkaas wiil keenidii laydin siiyo calaya aniga eebbaweynaha korkayga hayinun mid ku sahlan wey waqad khalaqtuka daliilkiina waa kana waqad waxaa dhaba khalaqtuka adiga zakariya min qablu hadda ka hor inaan ku uumay walam taku adoon ahayn shay-an waxba ayib waa gartay kolka arrintii waa dhamaatay laakin bidaayat lxamli canugaan hadda yabahu ku jira adigu kula jira wax ma hayna annaga shamuu nagu soo wareega kolka daqiiqadu xagga ayna soo mara waxaadna tidhahdaa aho canugii xaggiinuu soo jiraaw hadda xaggaagaan sugaynaa aduu kula jira qaala zakariya wuxuu yihi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow ijcal lii waxaad ii yeeshaa aayatan calaamo calaa xamli imra'ati islaanta hadday wax ku guntameen canugiina xaggayna uu soo maray aan ku talagalla daqiiqadaas ila socodsii qaala eeba wuxuu yihi aayatuka calaamada aad ku garani canuga xaggiina inuu soo jiro anlaa tukallima annaasa inaadan hadlin wey halaatha layaalin 3 habeen sawiyan adoo caafimaad qaba waxa waaye canuga habeenku xaggiina soo mara bidaayatulxamliga waxa waaye warkaa kaa reebtooma ma hadli kartid xanuunna ma qabtid carab lagaama hayo cuna kuma xanuunayo maskaxda sawiyan adigoo nabad qabo sidaada warkaa kaa xirmaa warkoo kaa xiran markaad aragtid canugii waa idinla jiraa xaggiinu soo mar qaala wuxuu yihi zakariya rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow ijcal lii waxaad ii yeeshaa aayatan calaamo calaa bidaayati xamli imra'ati islaanta uuraysigeeda bilaabashadiisa calaamahan ku kaso qaala eeba wuxuu yihi aayatuka calaamada aad ku garani canuga inuu idin yimid oo islaanta uur qaaday anlaa tukallima zakariya inaadan hadlin annaasa dad 3 layaalin habeena 3 sawiyan adoo caafimaad qabo hadalka ka xirana dikrullaahi ma wadkur rabbaka kasiiran
baashaalkii hadalkii kale dadkaa kaa xihan diinta waa sideed subaxdii hadduu soo baxay zakariya waa nin gaxan yahay ma hadli karo fakharaja zakariya soo baxay calaa qawmihi dadkii banu israa'iiles hogaaminayay baytulmaqdis uu joogaa korkooduu ku soo baxay min almixraab mixraabku ilaah ku caabudayey ee salaatuleylkuu ka soo baxay iyagiioo suga inuu tujiyu u yimid hadal waa dhammaaday kolkaas sidii taraafikadii oo kale fa awxaa ilayhim wuxuu u tilmaamay an sabbixuu tukada bukratan salaadii subaxda la tukan jiray iyo wacashiyantii galabtaba tukada aniga waa xirnahay kolkaa gacma fiiqfiiqi arrintii noqotay fakharaja zakariya soo baxay calaa qawmihi qoladuu ka dhashee loo diray beriso korkooda ayuu ku soo baxay min almixraab mixraabkiiyuu ka soo baxay fa awxaa wuxuu u tilmaamay ilayhim iyaga an sabbixuu tukada bukratan subaxda iyo wacashiyan galabti yaxye oo dhashay arag yaxye muhimadii uu u dalbay zakariya diintii sooma kolka hawl adagaa u tala dheeldheel maaha qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa yaxyaa hooy khud qaad alkitaaba tawreed qabo adoogaan wuxuu ku dalbaayay tawreed qabashadeeday ahayd yaxya tawreed qabo biquwatin xoog cayaariya dheeldheel maaha kolkaa diinta ee banacnacdan aan hayno ku meel mari mayso biquwatin xoogaa la rabo rasuulkana waxaa lagu yidhi waaciduu lahum ma stadactum min quwa bani israa'iil waxaa lagu yidhi waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dulla wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu ma aataynaakum biquwa kolkaa diinta si dhab iyo adeyga iyo raganimo in lagu qaato naf iyo maalna laga qadimo tadxiyo la sameeyo wey wailaa nacnacdan a waxaa muslimkii la baaba-ay ardaashan cirki isugu shareertay waa dadaaleen ardaasha muslimiintii iyo ahlu cilmigiina ma dadaalin xoogaa la rabaa yaa yaxyaahoy khudilkitaab qaad kitaabkii tawreedaha biquwatin xoog ilaah wuxuu yidhi waaataynaahu lxukma sabiya 40 lala sugi jiray nebiyaasha 40 lagama gaaro cabashadii waxaa la hirgelinayaa zakariya 3 jir uu yaa rasuul laga dhigay 3 isagoo jira yaa rasuul laga dhigay ilaahna halkaanuu noogu sheegay waaataynaahu waxaan siinay yaxya alxukma nabinimadii iyo waxyigii iyo garashadii diinta sabiyan isagoo muluq aw isagoo muluq oo hadda dhashay aan nabinimadii loo dhiibay waataynaahu alxukma xukunkii iyo nabinimadaan siinay sabiyan ilmaha isagoon qaangaarin haddii uu qur-aanka xifdiye xakiim wa dabeecadihiisa arag marka yaxye ilaah wuxuu yidhi waxanaanan naxariis miiranaan ka dhignay yaxya biwaalidayh 2 waayeelaa dhashay zakariya hooyadii ashaaca la yidhaah ashaaco waxay la dhalatay xanna waxay dhashay maryama kolka maryama iyo xanna cimraan oday saalixoo waayeelaa dhalay nabadoon weyn oo saalixaa dhalay dadkii masaajid ka shaqayn jiray kolka hooyadii ashaaco oo waayeelnimo ku dhashay iyo adoogii zakariya oo qalqallocduu dhashay kolkaasoo un laba loo naxariisto maaha 2 nabi kolkaasaa rabbi yidhi waxanaanan mid naxariis badan yaan ka yeelay labada dhashay mid ladunna agtanada yaan naxariis iyo qalbi dabeec ka gelinay wasakaatan mitahiran wasayida waxasura wanabiya min asaalixiin yaxye xumaan uu sameeyo daaye ma damcin hataa inuu xumaan sameeyana qalbigiisa kuma dhicin wasakaatan mitahiran oo hufan oon dembi barti lahayn yaan ka dhignay wa kaana yaxya wuxuu noqday taqiyan midka alla cabsi badan alla ka cabsi badan oon gafba usoo dhawaani wabaran mid baari ah biwaalidayhi labada dhashay walam yakun yaxya ma noqon jabbaaran naxariis laabe casiyan alla dhiba caasi waa wixii alliya waalidkaba dhiba casiyan mid waalidka dhiba af iyo adima ku dhiba midna ma noqonin wasalaamu nabadgelyo yaa calayhi yaxye korkiisa noqotay yawma maalin wulida la dhalay wa yawma maalin uu yamuutu dhiman doono wa yawma maalin yubcatu lasoo bixin doonaa xayan 3 goores bani aadamka u khatar badan yahay bani aadamka maalintuu dhalanayo waa khatar foosha ay bilcaanta foolasho cudurrada geerida ay kusoo gaban karto marad makhuufa la yihaa inay qofka dardaaranto ay diinta qabtaa maalintaa waa badbaaday waa maalinkuu dhalanayo maalinka uu dhimanayana waa khatar qofka markuu dhimanayo maalin adduuna uga daran male maalintaa qiyaamee lasoo baxayaa bay leedahay 3 maalmoodna hadduu badbaaday xaggees balaayo ku arkaa
وسدعي هالستاهي يحيى نكاسو النغضي وحنانا بانك يلي مدن حريص بدل من لدنا أنك إباك تنذا وزكاة مطهرا أهوفا تنبي الآباء وكان يحيى وحو النغضي تغير من لك عبس بدن وبرا مد باري أو دبعسا أو معان بوالديه اللبضة شيء باريا ولم يكن يحيى ماهان جبارا حريص لا بقى لفسا عصيا والد بباء وسلام النبت قليو حمان رمان تدلق النبت قلو أي عليه يحيى كوركي ساهاتي يوما مالين دب ما أركن ولد يحيى لدلي ويوما مالين دب ما أركي دونه ويموت لمن دونه ويوما مالين دب ما أركي دونه يبعث لصوبحين دونه قيامه حيا نساقون نولو كلك أمنا مريم قسيدي باللغو قفتي مريم هي يحيى والمهريد لبده يا ولا لا يقول يا بإلهي قال تعالى ربي وحو يري واذكر رسولك شرفت لو حس في الكتاب القرآن كقديسة وعاد كحستا مريم قبرت الليلة إذن تبدل مركي داراتي من أهلها غير كوذيبا كداراتي واتبرق شيء لباد باكل عدي واقبي سنيسا مكانا بيكون داراتي شرقيا بريا قرحك الصبح إلى الآن نسار وحي عابد يسمى وماشي مركي عيسى اللقوافو في دارتو ديبا يقبح دي قرحك الصبح سي بريا سوء دي قرحك الصبح إياقي حقاسي قبلو يقانان قولك واذكر في الكتاب قرآنك قديسة وحاد كل شيكتا مريم إذن تبدت مركاي داراتيو من أهلها عدو دي مكانا شرقيا قرحك صوبحا حبيتك تواقع بيساني سويس السلطي فاتخذت مريم وحيالتي من دونهم ريالك كسوك حجابا قنطوب وميران ايسي كلك ايضا ماشي كجرت جبريل قال لقصو توسي فأرسلنا وادرنو بيري إليها مريم روحنا أحد كي نفت لها جبريل هدو إيمان أيويل قرح بدن بو إسوغو كيسيي فتمثل وإسو سوريي لها إيضا مريم بشرا بني آدم سويا قرح بدن وأن حدي مريم إيضا عدل جوغتون تدل جوغين ويل اللي يرى نعس بي مودي إنو فرح مريك يابتي قالت مريم وحي تري إني أنيق مريم أعوذ وحن مغان قلي بالرحمن إلها نحريست منك ويل يهو إن كنت هداتها تقيا الله متك بقايانا إله باتكوها كان دونتا ويسو شيء جبريل قال جبريل وحو يري إنما وحكل ماها ساد موديميه أنا رسول ربك مريم ربك أنمو صادرانا هاي لأهب إن أنكسي لك أذيك غلاما ويل زكيا طاهرا عيسوي مريم وإلا يابتي ويل والذي يتبنجر لنا ما أهنن قبل لمارك قالت مريم وحي تري الناس ذيبا يكون إيقوهانا يانين يهو لأنك غلام ويل ولم يمسسني إما بالدارين بشر بني آدم نكاح يقول ولم أكن منئه بغيا لله قال ملك جبريل وحو يري كذلك واصلات سيكتي قال ربك باس هذا الكيري وأذيك إنا ظاهران تاي وهبال قال ربك مريم ربك وحو يري هو أذيك أسأل لغو قرشا إن ويل لغو سيو علي أنيق إبوينا كوركيغا هين واكو سالنتاي دانت مركا ويلك لغلي هيوا معي ولنجعله إن ويلك كيالو آية علامة قدرة إله كتوسيسة للناس داد كان ربنا إني أغادان إله إنو ملعد لا وحكا أبوري كرو والرحمة النحريس منا أنك حق أنك أمدان وغن حريسانينا رسول بو نقونا يا هقامية دادك حقا وشيغا كل كان حريستي إب إساقي كسو دقيسا دادكو كباهنا يا مريم وحالقو يري وكان إن دويلك دشوحوي أمرا تلو مقضيا حق إبلغ حكمي وحن وصول ماتي حيث كدهم بأمنا مريم اللقو يري عليه السلام واذكر في الكتاب مريم إن تبادت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت وحيالتي من دونهم سكضوضا حجابا قنطوب فأرسلنا وادرني إليها مريم روحنا ملك جبريل فتمثل وحيسو سوريي لها مريم بشرا بني آدم سويا قروح بدن قالت وحيتري إني أنيق مريم أعوذ مغنقلي بالرحمن إلها نحريست منك أذيك إن كنت تقيا ألا متك بقايا هداتاي أمانة السين دونتا قال وحي إنما وحك لما أنا أنيق جبريل رسول ربك أمدو صادران هاي ليهب قرون لأهب إن أنكسيال لأي صادري لك أذيك غلاما وين عيسوي سكيا ظاهرة قالت وحيتري الناس ديبا
yakuunu lii ghulaamun wiil igu ahaanaya walam yamsasni ima daarin basharun bani aadam walam aku man ihi bagiyan dhilo qaala jibriil wuxuu yidhi kadaliki waa runta laakiin qaala rabbuki wuxuu yidhi huwa arrinkaas calaya aniga eebbaha korkayga hayinun waa ku sahlan yahay walinajcalahu inaan wiilkaa ka yeelo yaan kuu siinaynaa aayatan calaama qudrada eebba lagu ogaado linnaasi dadka waraxmatan naxariis mina annaga eebbaha xagganagaan dadka uga naxariisanay wa kaana wiilkaa siinta lagu siinayo wuxuu noqday amran xaal